wafdi ka socda dalka Japan ayaa waxaa madaxtooyada ku qaabilay wasiirka madaxtooyada ahna kusimaha madaxweynaha dowladda Soomaalida Mudane Xuseen Xaashi Qaasim oo markaasi ku qaabilay wafdigaasi ayaa isugu jireen kuwa doorbixiyaal ah iyo sida oo kaleba xildhibaanyaal ka socda wadankaasi Japan. kulankoodii ayaa lagu falanqeeyay sidii loo wada shaqeyn lahaa gaar ahaan dowladda Soomaalida iyo dalkaasi Japan, gaar ahaan dhinaca adeeg bixinta caafimaadka gargaar kala gedisan oo iminka ka horba ay sameyn jireen ayaa waxa ay tilmaameen in ay haddana mustaqbalka sidan iyo si ka fiicanba ay u sii wadi doonaan. Hadaba goobtaasi oo goobjooga ka ahaa wasiirka xafiiska caafimaadka ee dowladda Soomaalida Dr. Muuse Axmed ayaa waxa uu sheegay inuu xiriirka Japan iyo deegaanka Soomaalida uu yahay mid aad u fiican isla markaasina mustaqbalkana sidan iyo si ka wanaagsan u socon doona. Hadaba arrintaasi soo tafaasiil dheeraad ka bixinaya waxa uu yiri sida tan. Waxaan kulan la yeelanay wafdi ballaaran oo ka socda dalka Japan oo ay kamid ahaayeen wasiiro soo maray wasaaradda caafimaadka, maaliyadda iyo arrimaha bulshada oo haddana ah xildhibaano ka soo maadartay ku jira golaha baarlamaanka ee dalka Japan lana xiriir wasaaradda caafimaadka ee dalka Itoobiya iyo deegaanka Soomaalida. kulankaas waxaa shir gudoominayay wasiirka madaxtooyada ahna kusimaha xafiiska madaxweynaha Dr. Xuseen Qaasim kana soo qayb galeen bahwadaagta kala duwan ee dowladda Soomaalida sektarada kala duwan caafimaadka ka hortagga iyo maareynta musiibooyinka iyo la taliyayaasha xafiiska madaxtooyada. kulankaas waxaan iskula qaada dhignay talooyinka iyo qaybta libaaxle ay ka qaateen maadaama ay kamid yihiin hay'adaha donorka u ah Global Fund iyo Gavi oo labaduba shaqooyin muhiim ah ka wada shaqeynta bahda caafimaadka deegaanka Soomaalida. shaqooyinkaas meelaha ugu muhiimsan ee xoog ay saaraan waxaa kamid ah daaweynta, ka hortagga iyo xakameynta xanuunka duumada, xanuunka qaaxada ama TB loo yaqaano iyo xanuunka HIV-ga. sidoo kale waxaan isla meel dhignay la isla eegay shaqooyinka caynkaas ah wax ka tareen dhanka talaalka joogtada ee caruurta iyo hooyooyinka waqtiga ay xamilada yihiin. waxaan kale oo isla gorfaynay goobahan ka wada shaqeyn karno waqtiyada soo socda si guud caafimaadka marka la eego si gaarana caafimaadka hooyada iyo ubadka. waxaan kale oo ka wada xaajoonay xiriirka ay la yeelan doonaan dowladda Japan iyo deegaanka Soomaalida si kor loogu qaado adeegga caafimaadka waaxihiisa kala duwan kuwii hadda ka hor gacanta lagu hayay hadda ka hor aan ka dhawaajinayna xoogga loo saaro. goobaha aan si gaar ah iskula eegna waxaa kamid ah kor u qaadida qaybta maadada libaaxle ay ka qaadanayeen fandiyada ay bixin jireen donor ahaan in la sii xoojiyo budgetka ku bixin jireen dhanka maaragtay malaariyada ama duumada, TB-da, HIV-ga iyo sidoo kale talaalka joogtada ah. waxaan kale oo isla meel dhignay in wada xaajoodku inta ka soo dhawaado aan ka wada shaqeyn doono aaladaha cusub ee adeegga lagu bixiyo digitalization loo yaqaano si loo ilaaliyo badqabka xogta bukaanka adeeggii maaragtay la bixin jiray loo fududeeyo oo casri u noqdo. sida ay si leeg waxaan isla qaada dhignay kor u qaadida adeegga ambulance-ka maadaama dalkaas lagu yaqaano in ay gaadiidka Toyota ay soo saaraan. Axmed Sharif, OBN, Horn of Africa, Jigjiga.